عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha hadda aan joogno waa xarunta Pizza House oo musiibo ay ka dhacday laba cisho ka hor. Sidaad aragtaan wujuudan quruxda badan ee dhalinyaradan halkan isku xilqaamay waxay u taagan yihiin in ay nadiifsadaan goobtan sidaan ognahay waxay ahayd goob dhalinyaro oo fikir badan oo laga istay magaaladan bedeshay meel aad u qurux badan oo loo soo nasasho tago ardayda jaamacadaha dhalinyarada magaalada carruurta iskuulada aada meel isugu yimaadaan ahayd. Marka waxaan rabnaa walaalihii fikirkan quruxda badan lahaa meeshan noo sameeyay quruxda badan inaan la taaganahay garabkooda nahay nadaafadii maanta aan kala qayb qaadanayno. waxaan rajeynayaa insha Allah inaan dhismahana kala qayb qaadan hadduu Ilaahay yiraahdo. Pizza House oo ka qurux badan Pizza House la yaqaanay inay dib u soo noqoto taa waxay caddeyn u tahay dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed inay diideen inay isdhiibaan. taasna waa astaan u gaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo intaasoo sano dhibaato ku soo jirtay haddana wali diyaar u ah rajo iyo muxuu ahaa dhiiranaan iyo kalsooni wali ku shaqeynaya. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah maanta sida u jeedo qof ka maqan mala dhalinyarada Soomaaliyeed ee halay kuwii iskuulada jaamacadaha dhalinyarada iyo shaqaalaha dawladda ahaa. marka ma sha Allah aad ugu faraxsanahay hawshan. marxin magacaygu waa Muno Xasan waxaan ka mid ahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada. maanta waxaan joognaa xaruntii Pizza House dhibaatada iyo masiibada ay ka dhacday ummadda Soomaaliyeed runtii waa uga tacsiyeynaa masiibadii ka dhacday meeshan. Pizza House ma ahayn meel qamri lagu cabo, ma ahayn meel faqsi ka jiro, ma ahayn meel shiishad lagu cabo, meel ummadda lagu dhibaateeyo ma ahayn. waxay ahayd meel dhalinyarada Soomaaliyeed ay isugu timaado isla markaana ay isxilqaameen dhalinyarada Soomaaliyeed ee wadanku wax ku baratay ee wadanka aanan ka bixin inay dhalinyarada kala helaan meel ay ku sheekaystaan ku qaxweeyaan isku xaq wareystaan yani isku warbixinada ku kala qaataan. marka nasiib darro waaye in meelihii dhalinyaradii isxilqaamtay ee kumi ku dar maxaa haysaa iyo intaanan hayaa ku dhistay meel lagu nasto in loo arko meel ummadda lagu dhibaateeyo inay tahay dhibaatada noocaan ay ka dhacday ma istaahilaan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada ku soo barbaartay ee dhibaatada wax ku baratay in dibkan loo geysto. marka annagana waxaan u taaganahay meeshii shalay dhalinyarada kala dumiyeen inaan maanta dhisno waana garab taaganahay dhalinyarada Pizza House ee isxilqaantay iyagu dhabarka u xirtay inay soo nooleeyaan bilicdii la helo dhalinyaro meel ay ku kulanto. waa dhisaynaa haddii dhalinyaradu ay dumiyaan waxa dumiyay waxaan aaminsanahay inay tahay dhalinyaro innaga oo dhalinyarana waxaan u taaganahay inaan dhisno. marka ummadda Soomaaliyeed message-kan u dirayna waxay tahay aan ka wada qayb qaadano anna isxilqaan aan muujino wadankan innaga iskale. maalin walba haddii la burburiyo maalin walba la dhibaateeyo dhalinyaradii la baabi'iyo waxay noqonaysaa meel eber. laakiin innaga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaradu istaagtay wadankan inay rajadeeda soo celiyaan ma ka quusan doono waa taagnaanayna insha Allah. وانا ما سنتي يونيفرسيتي بسم الله magacaygu waa Xasan Maal Xasan maanta waxa soo jeedaan waxa u taaganahay inaan soo celino bilicdii ay lahayd Pizza House taasoo ay dad si arxan darro ah u weerareen. waxaan leenahay dumiya annagana waa dhiseena mana kaniya jabayno inaan soo celino bilicdii Pizza House. TV-guna Fersal oo ku mahadsan yahay maashigii booqashada oo la soo booqday iyo wareysiga. waxaan rajeynaynaa insha Allah dhalinyarada inta joogna inaan isxilqaano qof kasta waxay qaban kartaa dhinaceeda ka qabato si aan u soo celino bilicdii iyo nasiinadii aan ku haysano Pizza House. kulligeen waxaan nahay Pizza House family waan ka shaqeynaynaa waana soo celinaynaa bilicda si kasta loo dumin insha Allah. waxaan u taaganahay inaan bilicdeena soo celino 10 mar haddii xataa ay wax ka dhacaan. salaam بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Zikri Maxamed Guutaale kana socda ururka dhalinyarada ee Somali Youth Activist. meeshan waxa uu maanay inaan ka qayb qaadano dib soo celinta inaan ka qayb qaadano olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicdii Pizza House maadaama meeshan musiibo ay ka dhacday dad Soomaaliyeed aan waxba galabsan oo shacab ah ay wax ku gaareen. sidaa darteed waxaan dhiirigelinaynaa dhalinyarada Pizza House businesskan magaalada ku soo kordhiyay magaalada meeshii labaad loo nasiino tigi jiray ay tahay. sidaa darteed inaan ku soo celino oo aan dhiirigelino inay dib u bilowdaan howlahoodii aan hil iyo hooba aan la garab istaagno. intaas ayaa maanta u nimid intaan dhalinyaro ah maantay oo iska wax u qabso ugu imaatay in si u dhiirigeliyaan dhalintan magaalada ishaag businesskan ka sameysay. waxay ahaayeen dhalinyaro isku tagtay oo wax baratay ay ahaayeen oo dalkooda inay wax ku soo biiriyaan ishaag oo dalkooda inay wax ku soo biiriyaan wax la inay ku soo biiriyaan oo shaqo abuur ka bilaabaan bilicda magaalada soo celiyaan. adiga qaybo badan ay ka shaqeynayaan dhalinyartan aad u maasintiin. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Maxamed Xuseen Xasan waxaan gudoomiyaha dhalinyarada caasimada
waxaan maanta ka soo qayb galnay olole ballaaran oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed iskugu timid in ay ka shaqeeyaan Pizza House maadaama ay ahayd meel xarun dhalinyaradu ay leedahay oo dhalinyaradu ay ku nasato. Pizza House waxaan leenahay ma aysan ahayn xarun dawladeed, ma aysan ahayn xarun muxuu ahay shakhsiyaad gaar ah ay leeyihiin oo dana gaar ah waddanka kale. Waxa uu istaagay meeshaan hadda maanta aan joognay burburkan ka muuqdo dhalinyaro Soomaaliyeed ee iskood isku xilqaamay. Waxay u istaageen inay business ka sameeyaan, waxay u istaageen waddankooda inay meel qurux badan ay ku sameeyaan. boqolaal dhalinyaro ayaa imaan jirtay meeshaan waxay noqotay meel markaan aan maqalnay in dhibaatadan ay ka dhacday dhammaan dhalinyarada murugo ayay ku beertay. Maanta marka waxaan u taaganahay in aan iskoobayaasha iyo fargeetayaasha aan wadanaa in aan qashinka iyo wasaqda ka qaadno, in aan walaalahan garab istaagno insha Allah. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ballan qaadayaan in ay Pizza House ay garab taagan yihiin wax walba oo karaankeenan aan la qaban doono haddii Ilaahay idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. magacaygu waa Haweys Ismaaciil Axmed. waxaan maanta u imaanay Pizza House anagoo ah dhalinyaradii si oo customer u ahay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. magacaygu waa Haweys Ismaaciil Axmed. waxaan halkaan u imaanay Pizza House si si volunteer wax ugu qabano iyadoo shalay burbur zaid uu soo gaaray. maanta dhalinteeni magaalada Muqdisho ma jeefto maasha Allah. maanta sida arkay guul ayaa leeyahay. dib iyo dheefna waa la qaybsan doonaa Pizza House. سؤال مرتين إنه ويدي سمو سوا أنا في أوكي meeshaan sida aad ka warhaysid waxaa ka dhacay dhibaato weyn ka dhacday maalmo yar ka hor. dad badan waxaa ku soo gaaray burbur badanna wuu soo gaaray xaruntan ganacsi ee Pizza House. laakiin sida la sheego wax kasta oo dhaco sabab wanaagsan ay u dhacaan. si kale markii loo fiiriyo wax kasta oo dhaca xigmada ku jirta la yiraahdaa, xigmad ilaahiya ku jirta. in kasta laga yaabo mararka qaarkood inaanan anagu xigmadaas fahmin. xigmada meeshan ku jirtay waxaa ka mid ah sida ay dadku u soo gurmadeen dadkii dhalinyarada ahaa ee macaamiisha ahaa ee ku xirnaa meeshan iyo dadkii kale ee yaqaanay ee maqalkeeda iyo muuqeeda meel kale ka arkay. kulli way soo gurmadeen waxa shaqeynaya maanta waa dadkaas oo si volunteer ah ku shaqeynaya oo iskood wax u qabso ku shaqeynaya oo maaragtay annagana niyadeena dhistay si aad iyo aad maxaa yeelay markay dadka dad badan oo wadar ah ay wax ka dumaan si wadar ay wax u dhistaan haddana. laakiin waagi hore waxa dhici jirtay dib marka uu dhaco qof kaliya ku dhacaya, qofkaas kaliya la gubanayo. hadda marka waxaa bilaabatay in dhibka dhacay oo nagu wada dhacay qofkii meesha joogay, kii meesha wax ku lahay, kaan ku lahayn, kii ka maqnay, kulligan dhibku uu nagu wada dhacay. inta naga dhimata Allah u naxariisto. laakiin waxaan isleeyahay qadarta Ilaahay ayadana wax la baaji kara ma aha. annaga soo hadda waxa yidiidada leh waxa magaalada Muqdisho ka bilowday oo ah inay dadku isu gurmadaan ee meesha duntay ay rabaan inay dhisaan, ayagu dhisaan qashinka iyo burburka yaalana ay ayagu ku xaaqayaan, gacmahooda ku xaaqayaan. marka waxay noo noqotay dhiirigelin weyn ay noo noqotay. inta badanna waxa waaye qof kaliya wax ka halaabi jireen laakiin hadda bulshada wax ka halaabeen. taas marka waxay ahayd wax arrin ugu ah nagu cusub waay oo hadda bilaabanaysa. صاحبك كاميرا إلى أسنان يا runtii maanta wax meeshan ka dhacaya iyo sida u jeedaan nadaafada ka socoto hadana shaqaalaha Pizza House iyo dadka meeshan hantidooda uga soo gaartay. runtii maanta waxaan dareeminaa farxad inkastoo murugo dheer ee soo martay asxaabteena meesha ay ku dhimatay, dad xaq darro ugu dhintay ay jiraan. marka maanta markaan aragno shacabka nala shaqeynaya oo garabna siinaya runtii waxayna gelisay tan in macnaha hore aan u sii socono oo anaga shalay meeshan joognay meel ka sii weyn aan gaarno meel ka sii sareysan insha Allah rajaynaa. Pizza House waxaan rajaynaa insha Allah waqtiga soo socda inay noqoto magaalada Muqdisho meesha ugu sareysa ugu caalamisan si shalay dadka u soo dhaweynayaan si ka wanaagsan aan mar walba aan u taagnaa insha Allah bilkarim. marka shacabka Soomaaliyeed sa u jeedaan meel walba ka imaadeen waxaan u imaadeen dad imaanba si garab nagu sii laayeen noo caawi laayeen oo ay noo la hagaajin laayeen nadaafadana. runtii waxa xusid mudan dadka markii meel qarax ka dhacdo loo imaan jirin waa la carbi jirin lama soo istaagi jirin. maantay dadkii oo dhan waa imaaday, dadkii customer-ka ahay, dadkii Soomaaliya oo dhan iskugu imaatay inay caawiyaan walaalahooda oo ay garab siiyaan. marka runtii maanta aad u faraxsanahay, murugo badan iyo xanuun badan oo aan dareennay maanta waa ka bogsanay.
wallahi waa aad u bogsanay marka aan shacabkii noo imaanayo garabna siinayo nala shaqeynayo waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol idinkana aad iyo aad noo garab istaagteen aadaan u mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim magacii ma bahanta ayuu xasan bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaa sharaf weyn u ah dhalinyarada Soomaaliyeed inay isugu imaadeen Pizza House ee dhibaato badan ka soo gaartay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku dhintay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa ku dhaawacmay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa hantida iska lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadanka gudihiisa wax ku barta kuna shaqeysanaayeen taasaana maanta keentay in haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed mas'uuliyiintii wax kasta isugu jiraan inaan maanta meeshan fargeetooyinkii dhiigga iyo wixii walaalaheen ay meesha ku daateen inaan ka dhaqno bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa sharaf weyn oo dhalinyarada Soomaaliyeed anagoo inaan maanta halkan isugu imaanay ololaha isxilqaan aan ka bilownay Pizza House waxaa wax ka soo gaareen waa dhalinyaro waxa hantida iska lahaa waa dhalinyaro kan dhinto waa dhalinyaro mid ka dhaawacmo waa dhalinyaro sababtaas darteed aan halkan maanta isugu imaanay shaqooyinkeeni aan u kansalnay nafteeni iyo maalkeeni anagana aan ugu horeeyno walaalaheen Soomaaliyeed saa u garab taagnaan lahayn mana noqon doonto markii ugu horeysay oo isxilqaan ay isugu imaadaan dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin waxay noqon doontaa kuwa meel kasta iska kaashado mana noqon doonto kuwa dhibaatada oo kaliya isugu imaado howlo badan oo wanaaga iyo horumarka iyo howlahan sidaysan dib noogu soo noqoninba dhammaan waa iska kaashan doonaa waana mahadsantihiin Farsi TV waxaa aan aad ugu faraxsanahay in qaraxii markuu noo dhacay masiibadii markuu noo dhacay kadib in ay noo soo gurmadeen dhalinyarada sidaan wada ognahay Pizza House waxaa leh dhalinyaro waxaa maalgashata dhalinyaro waxaa aasaasa dhalinyaro waxaa ka shaqeeya dhalinyaro waxaa hadda kambeynka nadaafadda wada oo si mutadawacnimo u shaqeynaya waa dhalinyaro ma jiro hal dhalinyaro dhowr gruubay ka kala socdaan oo dhowr dhalinyaro waxaa ku jira Samta waxaa ku jira ubaxa caasimadda waxaa ku jira dhalinta dalxiiska dalka waxaa ku jira fursad fan oo fahmo gabaxay tiimkooda ay wadaan Mano Yusuf waxaa aad ugu faraxsanahay horta in heerkan aan ka joogno dhalinyarada maan u maleynay waxaan ogaanay markii masiibada nagu dhacday kadib sida ay noola qaybsadeen xanuunka oo ay noogu soo gurmadeen taas waxay sii xoojinaysaa insha Allah in Pizza House markasta ay tahay entity ama bahalkii ganacsi ay leeyihiin dhalinyarada إن شاء الله وحان بلابي دونا اسمها وحان رجينا إن شاء الله وقت كوبان إن خسارين نجار إن شاء الله كسب بكسنو Pizza House إن نقطة إن شاء الله مالك ميدا مالها وبلع بقرحان مقالة وحاد النوع عادات سي دل يراد هيركا Pizza House أنك جوجنو واي أول نوع مكلا سوعنين ولي بأول وحان لا يبي جرن دل يراد مركز صور ما يشوف قلاه مهي مادان أصحاب تقار حوجا وحلا جاوا إن عند بسن جرني واي مقايدة هيت لكن هذا وحين نوع لثوج كله waxay u qaadatay magac meel dhalinyarada ay leeyihiin oo manbac u wallahi ma qiyaas kar dareenkayga waayo dhalinyarada arkaysid oo 100 qof ku dhow halaan fariinta gaarsiinay ayaga isgaarsiiyay dhowr group isugu jiraan saakay wada yimaadeen xataa qalabka ay wadaan maan soo iibin nin walba asaga leeyahay xaqinkiisa gloveskiisa qalab agabkii nadaafadda lagu sameyn lahaa nin walba asaga leeyahay waxaan leeyahay Pizza House dib ayaan idinku furaynaa adinka oo iska lahaa ayadii Pizza House oo sidii hore iyo si ka qurxoon insha Allah loo casriyay markaana waxa ku yeelan doontaan insha Allah kaalin fulineeda ku yeelan doontaan Pizza House sida fariintaas aan jira asxaabta dhalinyarada nala gurmatay ee hawsha nala qabatay nala kambeynka nadaafadda nala sameysay dawladda dacwadii madaxweynaha uu la socday markii inta qarax uu ka dhacay ilaa laga soo badbaadinayo dadkii ugu dambeeyay subaxdii waxaan rajaynayaa insha Allah in madaxda dawladda ay garwaaqsadaan oo xanuunkana gaaray dhibaatada nagu dhacday si uun in ay noola bahalkii contribute gareeyaan waayo lacagta dhalinyarada inta ay ku maalgelisay hay'adna ma siin hadiyadna kuma aysan helin oo lacag ay soo shaqeeyeen haddana waa dib iyo zero ka soo bilaab waxaan rajaynayaa insha Allah in kaalintooda dawladda way hore u qaateen oo waxaan rajaynayaa insha Allah inta dhiman in ay nagala qayb qaadan doonaan hadduu Ilaahay idmo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halkaan aan isugu nimid inaan dhalinyaradii dhibaatada soo gaadhay aqalka Pizza House inaan ka caawino waxa laali waxay anaga noogu baahan yihiin haddana shirkadda Eco waxaanuna insha Allah taala aan tabarteeda iyo karaankeyga insha Allah taala waa iscaawinaynaa
إن شاء الله تعالى يدو سيدي هورا كقرح بدو أو سيدي هورا كفي عن الدب لقفر هدنا وما سنت